iyadoo lagu guda jiro bilowgii bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa waxaa magaalada Birmingham ee dalkaasi Ingiriiska ka dhacday dhacdaan murugo iyo xanuun badan kadib markii dibadda mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaaladaasi lagu dilay wiil dhalinyaro oo 18 jir ah halka laba kalena lagu dhaawacay kadib markii lala dhacay toorey. Arrintan ayaa ka dhacday duleedka magaalada Birmingham sida ay sheegeen booliiska West Midlands ee dalkaasi Ingiriiska. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay iyadoo lagu jiro bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan ay dhacdadani ka dhacday dibadda masjid ku yaalo Smithwich ee duleedka magaalada Birmingham. 18 jirka geeriyooday ayaa goobta loogu tagay isaga oo sakaraadaya yeeshee gurmadayaashii ayaanan ku guuleysan in ay badbaadiyaan waxa uuna ku geeriyooday isla goobta oo ahayd dibadda masjidka. Si taa lamid ah ayaa laba wiil kale oo dhalinyaro ah oo da'doodu lagu sheegay 19 jir iyo 22 jir ayaa loo qaaday isbitaalka kuwaasoo iyaguna lagu dhaawacay toorey. booliiska ayaa ku waramayo in aysan ilaa iyo hadda dhacdadan u diiwaan gelin mid diineed iyo mid sidoo kale midab. Waxa ayna sheegeen in uu baaritaanku bilow yahay oo uu socdo. Waxa ayna sheegeen in tooreeyntu ay dhacday dibadda masjidka iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan lagu jiro. Afayeen uu hadlay booliiska West Midlands ayaa ku waramayo in ay hadda ka shaqeynayaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen duruufaha kaliftay in ay dhacdadani dhacdo. Sidoo kalena tooreeyntan uu qof ku baxo halka laba kalena uu dhaawac daran ka soo gaaray kuwaasoo hadda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada. booliiska ayaa sheegay in ay baaritaano iyo dib u eegis ku sameynayaan kaamirooyinka aaga ku xirnaa iyaga oo sheegay inay sidoo kale wareysan doonaan dadkii ka agdhawaa goobta si ay u ogaadaan dhacdada waxa kalifay sida ay ku timid iyo sidoo kale cidda ka dambeysay. waxayna intaa ku dareen in ilaa iyo hadda ay baaritaanku socdo oo aysan natiijo kama dambaysa boolisku gaarin. ha yeeshee waxa ay intaa ku dareen in aysan ilaa iyo hadda dhacdadan u diiwaan gelin mid diimeed iyo sidoo kale mid midab. dhacdadan ayay muslimiin badan oo ku nool waddanka Ingiriiska waxa ay ka muujiyeen walaac iyo walbahaar xoogan iyadoo ay tani ku soo aadaysay iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo habeenkii masaajidada taraawiixda lagu soo dukado. halka warka kiisa ugu darkoran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Abdullaahi Shiine.